أصحابت كسر دوادا رونشاك ميديا نتورك أصحابي runtii waxaa soo baxayo wadahadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran inay burbureen sababtuna waxay tahay Israel oo jooji diiday weeraradii ay ku haysay Lebanon qaasatan kooxda Hezbollah ee ka dagaalanta Lebanon taageertana Iran waxaa jiray heshiis hordhac ah kaasoo u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka qaasatan Donald Trump ayaa wuxuu la galay heshiiskaas Iran isagoo ballan qaaday inuu joojinayo ama oo ku qasbayo Israel inay joojiso weerarada ay ku hayso Lebanon qaasatan Xuutiyiinta Hezbollah marka asxaabay wadahadaladii hadda inay burbureen ayaad moodaa waxaana jiro wafdi labada dhinac ka socdo Mareykanka iyo Iran oo hadda ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ujeedaduna waxay tahay in laga hadlo hal qodob ayaa raba in laga hadlo qodobkaas wuxuu yahay sidii loo jooji lahaay duqeynta ay Israel ku hayso Lebanon qaasatan kooxdan Hezbollah qodobada heshiiska hadda looga hadlayo kuma jiraan 14 qodob ama 14 key points runtii kuma jiraan kaliya ujeedadu waxay tahay hadda in laga hadlo muxuu ahaay qodobkan in la joojiyo weerarka lagu hayo Lebanon taasi marka waxaa muuqato Israel hadda inay ku guuleysatay inay fashilisay wadahadaladii ama heshiiskii hordhac ahaa ay gaareen Mareykanka iyo Iran ee ku saabsanay ma aragtay arintaas xabad joojinta maxaa yeelay Israel waxay ku wadaa duqeyntii ay wali waxay ku wadaa Lebanon ay ku wadaa duqeyntii marka maxaa laga hadlaa oo qodobo kale laga hadli kara ma jiri karto maxaa yeelay waxay ka shaqeynaysaa Israel fashilin ay ku hayso heshiisyada Mareykanka Iran ay galayaan Iranna waxay maanta fahamtay inay muhiim u leedahay muxuu ahaay Strait of Hormuz inuu yahay muhiim hadii Mareykanka uu isku walwaalo isla markiiba inay xiri karto Strait of Hormuz markii xirtana hadda guud ahaan hadda way xiran yahay markii xirtana waxa runtii shidaalka adduunka ayaa sare u kacayo taasina waxay ku keenay Mareykanka culays aad u weyn qaasatan madaxweynaha Mareykanka marka wuxuu ku qasban yahay Trump inuu runtii siyaasaddiisa wax ka bedelo hadda waxa gudaha uga kacsan Mareykanka mucaarad ee ku eedeynaya in siyaasadii arrimaha dibadda ama US foreign policy ee fashil dhexda uga jirto waxa kale oo haysto cadaadis oo dhanka Israel uga imaanayo ay runtii dhabar ka tooginayso fashilinaysan wadahadalada iyo heshiisyada oo la galayo muxuu ahaay Iran dhanka kaleento beesha caalamka guud ahaan ayaa runtii cadaadis ku hayso marka saddexda dhinac ayuu ka gubanaa Trump hadda markaad fiiriso heshiisyadiina inay burbureen moodaa madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka JD Vance maruu airport ka taagnaa isoo ku sii socdo Geneva ayaa wax laga weydiiyay wuxuuna sheegay inuu arintaas oo ka shaqeynayo sidii xal looga gaari lahaay dhanka kaleento waxaad Israel ay sii wadaa wali duqeymihii Iran waxay ku noqotay buurtoodii ay ku noqotay Strait of Hormuz waxay taagan tahay anaa gacanta ku hayo haddaan wax yar oo dhaqdhaqaaq ama isbedel aan dareemo waxaan dhuujinaa xariga aan ku hayo Strait of Hormuz oo macnaheedu tahay inaan complete shutdown ka dhigo oo xiro marka taasina Mareykanka uma wanaagsano iyo dhaqaalaha caalamka shidaalkii oo cirka galo sky rocketing ku noqday ama qiimihiisii sare u kacay iyo culays soo wajahay madaxweynaha Mareykanka marka xaaladdu runtii waxay taagan tahay meel aan wanaagsaneyn kooxihii heshiiyay waxay moodaa ama MOU-gan memorandum of understanding kan inuu ahayd memorandum of misunderstanding isfaham darro inay ahayd ayaa la soo sheegay sababtu waxay tahay wax kale maahan maxaa yeelay wixii lagu heshiiyay inaan la fahminaa moodaa dhinacyada kala duwan haddana wixii lagu heshiiyay sidee tahay looma fulin oo maxaa yeelay Israel ayaa waxay ka shaqeynay kala furfuridda waxaana moodaa hadda runtii dagaalka Israel iyo Mareykanka inuu runtii toos u bilowday dhanka media iyo muxuu ahaay qoraallo in la isku qoro oo Iran macnaha ay Israel ka shaqeynayso kala furfuridda heshiiskan iyo inaan marnaba Israel Iran iyo Mareykanka aysan heshiin oo qodobo aysan ku heshiin markastana colaad ay dhexda ka taagnaadaan ayay ka shaqeynayaan si colaadda ayada ee wado iyo horinta iyo duqeymaha ay ku wato Lebanon ku wado Mareykankana uu qayb uga noqdo markastana ay Mareykanka ugu dhaxayso dagaal runtii oo nabad iyo wada hadal iyo soo dhawaasho aan marnaba la gaarin taasaa runtii Israel ay ka go'an
taasayna ka shaqeyn waxaan moodaa hadda inay ku guuleysatay runtii sida ay u kala furfurayso heshiiskii iyo sida loo filan karo maxaa yeelay halka qodob ee maanta Geneva loo joogo waxay tahay in laga hadlo heshiiska dhanka xabad joojinta ilaa xabadda la joojiyo oo Lubnaan laga joojiyo maahana Iran waxay taagan tahay 14 qodob ee heshiiska hore oo la gaaray ma fureeno mana ka hadlayno marka Al Jazeera arintaas ka hadlayso waatana bal waxay asla daawano that is going to Geneva or Switzerland is not going there to negotiate or to start those technical talks that will take 60 days for the final phase of this peace process between Iran and the United States. Instead, going there to drive home the idea that Iran is not going to move forward in the implementation of the Memorandum of Understanding unless the Israelis abide by the agreement. And the Americans are bearing the responsibility for that. The Americans have to guarantee that the Israelis comply. And that's the purpose of this visit. So it's not a visit for the intended negotiations or expected negotiations. Okay, dhanka kale isla daawan waxay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance isna mar uu ka hadlayay ayaa jirta runtii arintaas inuu u taagan yahay oo xali doono isagoo u sii dhoofayay Geneva waxaan isla daawanaynaa hadda asxaabay siyaasadii arrimaha Mareykanka Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo gudaha Mareykanka ay u kacsan yihiin kacdoono iyo mucaarad runtii diidan qaabka wax u wado sheegaya in siyaasadii arrimaha dibadda ee Mareykanka ay fashilantay been uu sheegay dhowr jeer oo been u sheegay taasoo ay ka dhigan tahay inuu yiri dhowr jeer waan guuleysanay beentii oo sheegan oo wali sii wado marka waxay asla daawan ayadana waatana. This is a disaster for American foreign policy, for the American economy, for American national security, and for the Trump presidency. I mean, folks, remember that it was on day one of this war that Donald Trump assured us it was running ahead of schedule. And then he lied and lied and lied and declared victory daily, weekly, for weeks. Victory always either imminent or just around the corner or already secured. And now he is humiliated. marka asxaabi waxaa moodaa xaqiiqatan wada hadaladii u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka inay fashilmeen intaan bal gaarin in laga hadlo 14 qodob ee hore loogu heshiiyay taasina marka waxay ka dhigan tahay muxuu ahaay qodobkii ugu muhiimsanay oo maanta loo tagayay ama loo joogay Geneva ayaa wuxuu ahaa in xabadda laga joojiyo Iran Lubnaan Iran taasi ku dooday taasna ma muuqato hadda in Israel ay yeelayso maxaa yeelay heshiiska waxa kamid ah in xabadda la joojiyo Israel xabaddii wali wada oo duqeyntii ku wada Lubnaan marka Mareykanka waxa moodaa halkaas inuu ku guul dareystay inuu ku qanciyo Israel inay ka joojiso duqeynta Lubnaan intaan laga hadlin 14 qodob ee heshiiska hore loo gaar marka ma muuqato runtii heshiis la gaari karo waxa muuqato in colaadii dib loogu noqonayo ayaa muuqato oo ay fashil ku soo dhamaanayaan wada hadaladan qodobka maanta loo joogo Geneva oo isna fashil ku dhamaan doono marka asxaabay hadda ku cusubtiin Runsheeg Media Network aragtidiina waa xor u tiin qaybta hoose commentiga waa ku soo qori kartaan inta muuqaalkan muuqaal ku xigo aan isku arki doono waxaan idin rajeynayaa khayr caafimaad bye bye